السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وضع سلام يا دمان بالشوين تعييو ميلو البودجوكتان وأنيقو خضراء أو إذن لا وأنا وناكسن أنت هبين وناكسن أنت قلب وناكسن أنت كدب صفر ميل ماشان عادي نمرك وحاشري مقصو مرد ولا كوسي نقطة أرطن نميو عرين لبدان برين السوشيال ميديا رح أرديسي ياك يابي waxaan arkay naagtan markii kowda hore la soo geliyay ee lahaa naag waxaa soo baxday asxaabihii iyo yaa qadiiji iyo caashi iyo malaha ay laba kala tirsadaan oo ninkeedii muxuu ahaa ugu diiqday saaxiibadeed filimaantaasaan maqmaqlaayay moogti mabas dhaguma sii dhigin ba laba cisho kadib waa kana soomaalida baa la ordaysa meel walba social media platform walbood gasho ayadaa dhex taala فيسو سنابو انستغرامو waxaan naagtan maxay ahayd hadaba Soomaalidana si fiican ma macneyneen klibiyo jira si fiican ma macneyneen laakiin nimo waxa jira Ingiriiska degan oo naagtan iyo ninkan si fiican u garanay YouTube-ka ku qoray magaceedii ama hebelka bug waxa soo daatay mid ma ku dhuftay sheekh waa mid baa ku leeyahay oo naagtan waxay ahayd ba dadka ruqyooyinka jimanka maaragtay jimbaan saaraa iyo jimbaan geliyaa iyo jimbaan la boodaa iyo muxuu ahaa dadka la sixiray iyo waxaasaan ayaan maxay ahayday aan sixirka saaraa iyo filmaan saasa iyo kolka hore caan ku ahayd oo thousands ay ku qaadan jireen dhowr kun naagtii lacagtii oo jin saaristii iyo hawlihii yaa xoogaa yaa yar qaraxday dhacdhac markii dambe double life ay ku noolaayeen tan oo sheekadan jiranka boodboodaya iyo mid oo fancy life oo gaagaab iyo yaa Dubai loo tagay dalxiis iyo Paris laga soo casheynay caawi iyo filmaantaas waxaa waa nin horta Soomaali haddaan nahay qofku hadduuba Carabi yahayba waxaanu fahansannahay inay asxaabtii uu ka soo haray ama nabigiina qaraabiyihiin ama maaragtay horta waxaa waaye Soomaaliyadan anaga waxaan ku mashquulnaa qofka inta xun leh qofka inta fiican la cid kuma mashquulayso ma aqaan Soomaaliba u gaartay bisha waddan basaas maalmihii hore Soomaalida caan kuma ahayn naagtan markii khayrka ka shaqeynaysay jiranka saaraysay oo say hadalka u dhigtay markaas lagama hadli jirin laakiin markii ay cilmiyadan kala soo saartay yaa la yiri yaa xaliimadii kabiibi kala gediso xidhatay la yiri markii dambe kolka horena waxay ahayd caashi iyo khadiiji iyo malaha laba kala tirsan jirin maanaw sayid ku fahansanayeen meeshaan ay istaageen marka naagtan sheeko waxay soo dhigtay odaygaygaan gift u siiyey saaxiibaday waa tiga yaabisay moogta marka waxaan hubaa xarfaan badan intii dumarkoodu la tagay ma ku yiraahdeen xaliim janno marabtaa xaliimadan say sameynayso fiiri jannadeeda kaaga horeysa haye saaxiibadaa soo raadin oo war filikaas filin soconay ma waxaan dhaqan u leenahay ma islaanta inay ku tiraa saaxiibadaa soo raadi rag badan way sameeyeen no dumarkoodu way tusaan wixii ka raac ilaahay baa ogaan kuma sheekeyn kara muuhi laakiin waa la qarsaa waxaas oo kale waayo waxaas waxaan ogaa inay ku dambaynaysaa dhow tolo sheeko xun qofkan hore aad u qabtay waxaad ogaataa inay qof damiir la tahay inay qof qalbi la tahay waxaasoo ka qalbi jabaysaa cabdiyadaan la hadlayaa adi maanta islaantaa intay kuu timaado hadday ku tiraad cabdiyow saaxiib cabdigaa meelaha iga soo raadi wallaahi waxaan holu kala guri lahaa meeshaas ya I know marka waxaa waay markii la maqlay naag baa ninkeedii saaxiibadeed hadiyad ugu keentay saasay wada kacsanay Soomaalida yaa asxaabii baa dib u soo laamay waa tii aaminsaneen malaamana ogday naag meeshaana jirta oo muxuu ahaa iyo nin meeshaana oo malaha nabiga ay qaraabe yihiin iyo waxbaa laga sheekeynay mooga qaar baa xataa aayad quraan soo qaadan oo lahaa fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i matnan wa thulaathan wa rubaacan qaar baa la xataa yaa hay oo soo qaadanay daliil iyo xadiis iyo yaa diintu way ogashahay laakiin diinta laguma dhuntay
naagtaada haddaad naag la guursanayso laguma warin barax soo dhigo ka sheekeeyo muxuu ahaa ummadda uga sheekeeyo warnimayahow naagahan carbeed isku dhaqan ma nihin dhaqankeena soo qaadana markaan fiidiyooyal ka hadlayno waxaa kaloo dhacay arrinta kale iga yaabsaa waxay tahay dhowr cisho kamay soo wareegin bul waxaan inay qalad ahaayeen bay yaan ogaa waxa qaladkuna ma bawaaraba wuxuu sax hadduu yahay uu sii jiray laakiin wax qalad markuu yahay maba jiraba marka waxaa dhacday xaliimadii guriga ku cusbayd ee la keenay waxayba taagan tahayba naagtan qalad baan sameeyey saan baan sameeyey maxay baan sameeyey kan baan sameeyey kolka hore miya ogeyn miyaa waxaan ina qalad tahay naagintii reerkeedu u raacday ay tiri odaygaaga bal yaa haay ani adigu haay odaygu kaale isagu ma saxan baasta ah sheekadan aan fahmi waayaba waa run qofkuu guursan karaa ilaahay baa taas xor u siiyey laakiin markuu guursanayo qaab loo raadsaday leedahay meel loo maray leedahay Facebook iyo balaayi iyo Instagram iyo yaan soo dhigayaa islaanteedoo naa kala isiisay I don't think so wax fiican inay tahay taas uma malay anu ciddii filinkaa aaminsan waxaa laga filin qaldan marka waxyar kadib bul sheekadu way qaraxday anuu saan hadda u fahansanahay sheekadan filin laysla ogaayo caanimo iyo wax lagu raadinaya yahayd malaha habase ahaato waxay rabtaba ha noqoto laakiin shayga qaldan qofka qaldan markuu sameeyo un baan baraarugnaa inta hore qofku annaga waxaa waay wuxuu noo yahay asxaabihi Soomaali haddaan nahay carabtu niyo aan kala ogaan horta mid yaan isku laaqin carab walba ma ahan inuu waxaad aaminsan yahay carab waxaa jirta kuu salaamaysa ay masaajid ku jiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat hadhowna isagoo meelaha budbuudeed arkay war maxaa dhacay oo ninkan waxaa aaminsantahay ma aaminsana marka annaga Soomaali haddaan nahay fikirka aan carabta ka aaminsannahay horta aan joojino sacuudiga muxuu ahaa ninka odayga maasha allah Sudeesi waa nimanka maanta islaamka ugu birlaansan ugu cajiibsan shalay uu ka xanaaqay sacuudiga shalay ma ahan adii waqti hore ka horbeed laakiin uu xanaaqay ingiriis ku tegey markii la wareystay maxaa dhacay la yidhina wuxuu yidhi carruur yaroo Soomaaliya oo tahajudka iyo taraawiixda masaajidka u timid inay ku tukato iyo albaabka hortiisa laga qaaday markaas aad cabdal laga dejiyey iyadoo balaayadii xabad saa u dhacayso marka wuxuu yidhi qof ilaahayba nagu dhaariyey cibaado u yimid masaajid in laga qaado oo meel aan ogahay laga rido ma noqonaysa nimeyo sharciga weyn baa la rabay in la sameeyo buuri anugu xukunkaygaan soo diiday qaxooti meeyey waraalahan kartiin markii dambe qaab diblomaasi ahaan baa lagu dhameeyey waa la celiyey waxaan loogu balqaaday isagana qof dambe laga hor qaadin xaramka hortiisa marka waxaa waay waqtigaan joogno waqtigii ummadeennu ay isku sheegi lahayd baahayd maa waqtigii oo la dhihi lahaa muxuu ahaa ebil baa saa samaysay iyo ebil baa buumo ku socotay iyo kolka hore naagtu naag fiican bay ahayd baan islahaaba anu oo jinka saarto oo waxaan ku idhi maasha allah marka maxay ahayd nimayo Soomaali haddaan iska hubsanno hubsimaha hal baa la istaabay Soomaalidu tiraahdaa Google wax la yiraahdaa jira aabaha macluumaadka ana xataa dad reeyay wadaga helay qof walba xaliimada Soomaaliya joogta dad ku qorto ka helay cabdiga Kenya jooga dad ku qorto ka helay Google-ka ku qor horta markaad Google-ka macluumaad ka hesho kugu filan iyo kadib video laga soo qaataa laakiin haddaan iska iraahdoon intan muxuu ahaa Khadiija walaalaha ayaan iyo caashay qaraabo yihiin iyo ya asxaabi bay ka soo hadhoon haddaan iska iraahdo that's not working man taasi ani ilama ka filan soconaya ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay qofsiimaha hal baa la siistaa iyo Soomaalidu tiraahdaa markaan iska hubsanno qofka aad video ku soo qaadanaysiin inuu qof fiican yahay inuu qof xun yahay waxaana qurux badan mar walba qofka wanaagiisa inaad ku soo qaatid video xumaantiisa inaad ku soo qaatid ma hore youtuberadu waxay raadinayaan subject u raadinayaan ninka youtuberka wuxuu ka hadlo bulshadiisa ku sheekay raadinayaan sax waay waana laakiin filmaanka fiican baa jira abti filmaanka cajiibsan baa jira subjectka cajiibsan baa jira marka maanta fikiraan la wadaaga intaas ay eeg tahay waana wada salaam meel walba joogtiin Soomaalida youtuberadana aad baan u salaamayaa waa walaalkiin oo idin le naga daro ku dhadee waa walaalkiin oo idin le maalinku hayni wacnaado khayr badan ma isku ognahay tan iyo videoga dambe ay loobina channelkeena ku xinaatan subscribe like share oo da kana stop fahmi kartaa ma cilmigaas oo dhan khayr badan baan idhaafay ciao